muddo gaaban kadib dalku wuxuu yeelan doonaa baasaboor cusub. agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Xuseen Qaasim Yuusuf ayaa ku baaqay in dowladda federaalka Soomaaliya ay bisha Oktoobar 2026 si rasmi ah u bilaabi doonto soo saarista baasaboorka elektarooniga ah oo jiilka saddexaad kaasi oo lagu qaban doono tiknoolajiyad casri ah oo sare u qaadaysa amniga iyo tayada dukumeentiga. agaasimaha ayaa sheegay in baasaboorka cusub laga sameyn doono qalab casri ah oo dunida laga isticmaalo kuna caanbaxay adkaysi cimri dheer iyo awood uu leeyahay inuu yareeyo khatarta been abuurka iyo wax ka beddelka sharci darrada. wuxuu sidoo kale xusay in baasaboorka cusub uu yeelan doono astaamo amni oo heer sare ah iyo farsamooyin casri ah oo sahli doono in si fudud loo xaqiijiyo xogta qofka, taasi oo sare u qaadaysa kalsoonida lagu qabo baasaboorka Soomaaliya marka lagu gudbayo xuduudaha caalamiga ah. Xuseen Qaasim Yuusuf ayaa tilmaamay in baasaboorka cusub oo si buuxda ula jaanqaadi doono heerarka shuruudaha ay dejisay hay'adda caalamiga ah ee duulista rayidka ICAO, taasi oo muhiim u ah aqoonsiga isticmaalka baasaboorka Soomaaliyeed ee dalalka caalamka. mas'uuliyiinta hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda ayaa sheegtay in mashruucan oo qayb ka yahay qorshaha dowladda iyo casriyeynta adeegyada socdaalka ee dukumeentiyada aqoonsiga, iyadoo ujeedadu tahay in loo xoojiyo amniga, la fududeeyo isu socodka muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo in la kordhiyo kalsoonida caalamiga ah ee baasaboorka Soomaaliya. hirgelinta baasaboorkan cusub ayaa loo arkaa tallaabo muhiim ah oo Soomaaliya uga dhigaysa dal la jaanqaadaya horumar tiknoolajiyad isla markaana sare u qaadaya adeegyada ay helaan muwaadiniinta Soomaaliyeed.